warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaal magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag dowladkeeda ku dhexmaray ciidamo kala taabacsan jabhadda uu hogaamiyo Corneyl horey uga soo goostay ciidanka Somaliland oo lagu magacaabo Saciid Awil Jaamac Caare. sarkaalkan iyo sidoo kale ciidanka uu hogaaminayo ayaa la sheegay inay saakayto ay ka ruuqaansadeen fariisimo ay ku lahaayeen deegaana ka tirsan gobolka Sanaag isla markaana ay aadeen deegaana horle halkaasi oo markii dambe sababtay inay iska hor imaad u dhaxmaro ciidanka Somaliland ee fariisimaha ay ku socdeen ciidanka Corneyl Caare iyo sidoo kale jabhadda uu hogaaminayo janankan. sarkaalkan ayaa horey uga soo goostay ciidanka Somaliland waxaana wararku ay sheegayaan in dagaal dhowr daqiiqado qaatay uu halkaasi uu ka dhexmaray. dadka deegaanku waxa ay sheegeen inay maqlayeen daryanka madaafiic culus oo ay isku adeegsanayaan dhinacyada dagaalamay waxaana jira sida ay soo wariyeen ila ku dhow jabhadda Corneyl Caare iyo sidoo kale dadka deegaankuba inuu khasaaro labada dhinac uu ka soo gaaray dagaalkii saaka ka dhacay duleedka magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. jabhaddan ilaa iyo hadda faahfaahin kama aysan bixin halka ay ku wajahneed laakiin waxa ay ka ruuqaansadeen fariisimo ay dhowaan kala wareegeen ciidanka Somaliland kadib markii dagaal uu ka dhacay isla aaga maanta dagaalku uu ka dhacay. Somaliland ayaa horey waxa uu sheegtay in ay dagaal ay kula jirto jabhaddan oo sarkaalka hogaaminaya oo horey ugu soo goostay ciidanka Somaliland inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi ah u hoos tago sarkaalkan laakiin inta badan Puntland ayaa sheegtay in ay markaasi xiriir dhow ay la leedahay. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagu maalin ka hor waxa uu sheegay in uu wada hadal u socdo jabhadda iyo sidoo kale ciidamada uu hogaaminayo isla markaana ay suurtagal tahay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafkii jiray ee sababay inuu goosto sarkaalkan. dhinaca kalena waxa wararku ay sheegayaan in ay markaasi madaxweynaha Somaliland lagu waday inuu booqdo deegaana ka tirsan gobolka isagoo oo markaasi la kulmi lahaa saraakiisha jabhadda mana cadda waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan iyo wada hadalkooda hore waxyaabaha ka suurta gashay.